aynu markan u galno ururka gabdhaha suxufiyiinta Soomaaliyeed ayaa dood ay ciwaan uga dhigeen dhibaatooyinka haweenka suxufiyiinta ee ka soo wajaha goobaha shaqada waxay ku qabteen magaalada Muqdisho gabdho tiro badan oo suxufiyiin ah ayaana doodaasi ka qayb galay haddaba si wax badan aynu u ogaano Farxiye Maxamed Khayre oo ah gudoomiyaha ururka gabdhaha suxufiyiinta Soomaaliyeed ayaa studio Universal ee Muqdisho igula sugan فرعية برقون أكسن كوسدو أنت كذب يونيفرسال. طبعا واصح صدح مع الموضوع يوها برامج لقد ضوضاء كسب سنة حالضها قبلها الصحفيين تكسو وجيه كرا إن قابت الشقاء ورباهين تجوده هذا أما بنان كبا مركاي وشق الدونا نايان طبعا لباتوين واجران أو أي قبله أي وجهان أنت بدن لنعكسو كسو وجيه كرا عليه صدين قلنا ننكي الشقاء أو دمر نمل حريرة أو مرك قار وواحد بدن قبله هدي أي ربطين ورباهين تأي ka muuqato ama galgal ay sameeyso sida wiilashii oo kale ee doorkeedii ay qaadato in ay dhici karto inay ka hor yimaadaan caqabado oo ay kamid yihiin in la dhaho waa gabar wax badan ma qaban karto markasta looga kalsooni badan yahay wiilka in uu doorkiisa uu qaato waxyaabaha la isweydiiyay waxa kamid ah sababaha gabdhuhu doorkoodu u muuqan la yahay iyo xalka ah in gabdhuhu kaalintooda ay qaataan talooyin muhiim ah ayaa ka soo baxay oo la isla gurfeeyay dabcan dhanka banaanka marka laga hadlayo sidoo kale caqabadaha gabdhuhu ka soo wajaha hadii ay u war doonaan qaybaha kala duwan ee bulshada ama dadka ay wareysanayaan wax dumarnimadooda la xiriireen markasta caqabad ay kala kulmaan ayagoo qofka mas'uulka wareysanaya xitaa markasta uu ka doorbidaayo marka wareysi laga hadlayo in wiilka uu wareysto tusaale ahaan in xogta kala duwan oo meediyaha wariyaasha gabdhaha marka ay u baahdaan marka qaar dhibaatooyin ay kala kulmi karaan qaybihii bulshada kamid ah inta badan gabdhuhu in ay dhahaan in shaqada meediyaha oo kale iyo ka shaqeynteedii waxyaalo kale ayaguna ay kala kulmaan runtii in gabdhuhu la dhiirigeliyo isbedel in la sameeyo muhiimadeena waxay ahayd in laga gudbo meesha maanta la joogo si gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliyeed ay u sameeyaan isbedel muuqdo la taaban karo tababarkana waxa uu daba socday tababaro hore SWJ ay uga soo qabatay magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya oo looga hadlayo xaaladaha ay ku shaqeeyaan gabdhaha warbaahinta tacadiyada dhibaatooyinka iyo dhanka sinaanta shaqada ee dhan walba ahba tani markii madashan gabdhaha suxufiyiintu ay ku midaysan yihiin ee loo soo gaabiyay SWJ oo aad adigu hormuud ka tahay la yagleelay maxay kula tahay in ay isbedeleen arrimaha aad xustay iminka iyo kuwa kale aysan dadku horey u ogeen wax badan isbedelay waxa kamid ah tusaale in gabadhu waqti ka hor marka ay dhibaato ay kala kulanto xarunta warbaahineed ay u shaqeynayso oo isugu jiraan dhibaatooyinka in mid shaqo iyo in ay hadii ay u baahato maanta gabadhu inay gudubto in ay doorkeedii ay muujiso in caqabado ay kala kulmi karto oo inaan ogeyn in ay ka hadasho ama ay gudbiso maanta waxa dhacda ama imaadaba in gabdhuhu ay hadli karaan in ay og yihiin waxa ay rabaan iyo waxa ay sarrabin ay ka hadli karaan laakiin xiliyo ka hor ma jirin isdhaxgal ayaa la sameeyay oo gabdhaha saxafiyiinta waad ogtahay waayo dhaweyd ururku waxa uu soo bandhigay daraasaad la sameeyay Soomaaliya markii ugu horeysay oo ku saabsanaa xaaladaha dhabta ay ku shaqeeyaan gabdhaha warbaahinta dhanka tacadiga kamid ah oo noocyo kala duwan u bixi karo oo gabadha marka ay warbaahinta ay ka soo shaqo doonanayso marka ay xiliga shaqada ay ku jirto sinaantiya kamid aha helida jaanisiyada marka ay warbaahintu tababaro ay hesho wiilasha iyo gabdhaha in kaalinta gabdhuhu uu markasta uu aad u hooseeyay laakiin maanta isbedel in uu jiro maanta hadii warbaahin tababar ay hesho in maanta si balance ah wiilasha iyo gabdhaha loogu qaybin karo fursadahana sidoo kale waxyaabaha ugu weyn aan u doodeyno waxa waaye in isbedelka meel kasta uu taabto in gabdhuhu doorkoodii uu muuqdo go'aanka gaarista warbaahintana qayb inay ka noqdaan gabdhaha wariyaasha sidoo kale in la helo gabdho wax shaqaaleysiin kara inta badan warbaahinada Soomaaliya waxa wax shaqaaleysiya waa rag caqabadaha mararka qaar meelahaas ka imaan karo in kasto ka hadalka warbaahinta iyo doorka gabadha warbaahinta marka la yiraahdo aad iska dareemi kartaa xaaladaha ay daruufaha jiro sababtoo ah inta badan gabdhihii journalistayaasha wax bartay oo jaamacadaha ka soo qalin jibiyay laguma tixgeliyo aqoontoodii waxa ay sababtay marka gabdhaha qaar in meediyihii ka shaqeyntoodii inay inta ka gaabsadaan meelo kale ay u shaqo
raadsadaan si ay nolol maalmeedka iyo incomekoodii u muuqdo. laakiin gabdhaha kale oo warbaahinta ku jira ama kuwa yaryar oo kusoo biiraya ama kuwa normalka ah in markasta haddii aan u baahno in isbedel la sameeyo heer maamul gabdhuhu ay ka qayb qaataan inay imaan karto caqabada ah in gabdhuhu ay yihiin gabdho aad u yaryar oo gabdhihii waaweynaa oo wax soo bartay oo door ku lahaan lahaa miidiyahana ay kaga baxeen dhinacaasi dhaqaalaha darteed. marka waxaan u baahanahay guud ahaan in isbedel la taaban karo warbaahinta Soomaaliya in ay noqoto ay horseed u noqoto si loogu dhiirageliyo gabdhaha waxbartay inay ku hagtaan ka shaqeynta miidiyaha aysan ka doorbidin meelo kale inay u shaqeeyaan. caqabadahaasina waa ay ka mid yihiin oo loo sababeyn karo in dhaqaalihii miidiyaha iyo ka shaqeyntii warbaahintii arrimahaasina waa ay jiraan dabcan. wata dooda intii aad ku jirteen Farxiya ma isla soo qaadeen in ay jiraan xarumo badan oo gabdhaha doorkii loogu talagalay siiyay hadday noqon lahayd sinaanta xagga shaqada hadday noqon lahayd in jagooyin fiican ay qabtaan oo iyagu ay hormuud noqdaan dhinacaas doodiina ma ku soo bandhigtay waa ay jiraan laakiin aad bay u yar yihiin ma ahan wali sidii loo baahnaa. waxaa suurtagal ah xarumaha warbaahinta ku yaala Soomaaliya oo dhan maanta dhinacaasi boosiishaka hal gabar iyo wax lamid ah in laga heli karo. inta gabdhood oo warbaahinta Soomaaliya ka shaqeynayaan waa dareemi kartaa caqabaduhu kuma eka oo kaliya ka shaqeynta warbaahinta. marka ay gabadha warbaahinta ay joogto ma helayso jaanisyo badan oo maanta uu heli karo xarumo badan oo warbaahineed maanta. marka ay gabadhu ay ka shaqeynayso waxaa suurtagal ah in ay shaqo maalmeedkeedii ay gudato in meelaha qaar ay caqabad ay kala kulmi karto. tusaale ahaan meelaha qaar gabdhuhu ma lahan meelo u gaar ah oo marka ay shaqada ay ka soo baxaan ama ay isku diyaarin karaan. gabadhii waqti badan waxaa suurtagal ah isdiyaarinteedii in uu kaga baxo iyo shaqo maalmeedkii ay dhayliga maalintaasi ay qabanaysay oo tusaale ahaan oo aad marka qaar ay ugu mashquulsho. marka maamulkan oo u arkaayo gabadhan maanta oo dhan inay isku mashquulsan tahay oo wax badanina warbaahintaasi ay ka qabanayeen laakiin dood badan ee gabdhuhu ay ka keeneen inkastoo kulamo kan ka horeeyay oo maamulka warbaahinta lagu casuumay eedeymahaasi ay muujiyeen laakiin inta badan gabdhuhu waxa ay sheegaan amaba sida caadadu ay tahay in subax kasta warbaahinta intay soo galaan xilli dambana ay ka baxaan intaasina ay leeyihiin waxaan qabanaa shaqo laakiin doorkeeni kama helno wax mahadcelin ahna inta badan looma soo jeediyo amaanta iyo marka sababtoo ah marka shaqaaluhu uu warbaahin uu ka tirsan yahay ama uu shaqeynayo qof kasto shaqaalaha waxyaabaha dhiirageliya wax soo saarkiisana qayb ka qaata waxa in shaqaalahaasi lagu dhiirageliyo shaqada uu qabanayo. haddii la arki lahaa gabar wax sameysay shirkii shaqaalaha loogu mahadcelinayo la leeyahay hiblaayo shaqo fiican ay qabatay gabdho badan ee dhiiragelin u noqon lahayd waxaana wax soo saar badanna wuu imaan lahaa. anagu waxaan ku dhiiragelinaa waxa ugu weyn oo gabdhaha aan ku dhiiragelino waxa waaye gabar kasto xarunta warbaahineed ay ka shaqeyso in ay door muhiim ah ay ka qaadato in iyadu ay isa soo saarto halkii aan maamulka aan uga baahnaan lahayn inaan dhahno gabar ka dhig manager ama maamulka ku soo biiri. gabar kasta isbedel inay sameyso muhiimada ugu weyn waxa waaye intaas in aan helno gabdho badan oo barnaamijyo badan qaban kara wax kasto warbaahintu gabadha ay u dirtana in aan joojino arinta waxaan ma qaban karo iyo jadwalkii maalmeedkaaga inaad fiirsatid sababtoo ah si aad isku muujisid oo aan waxa aan rabna aan u gaarno waxa waa culeysyada jiro marka qaar inay gabdhuhu ay ku qanci karaan oo ay kamid tahay waajibaadkooda shaqo. marka laga hadlayo sanadihii ugu dambeeyay ayaad moodaa in aqoonta gabdhuhu isbedel fiican uu ku yimid hadday noqon lahayd in xeerarka jaamacaduhu ay soo dhamaystaan ama shahaadooyin sarsare ay jaamacaduhu ka soo helaan in ay noqdaan gabdho suxufiyiin oo luqado kala duwan ku hadli kara. ma isleedahay marka isbedelkaas dhacay ayaa hadda sahli karaya in isbedel kale ay ka sameeyaan goobihii shaqada ka hor ma isleedahay arrintaas oo aan jirin aawadeed ayay ula kulmi jireen in boosas fiican aysan ka soo muuqanin iyadoo sidaas ay jirto markasta waxaa meesha ka maqnayd dhiirigelinta gabadho si kastoo ay wax u soo barato si kastoo ay aqoonteeda ay u dhisan tahay mararka qaar ma helayso meel ay ku soo bandhigi karto. waxay la mid tahay gabadha oo warbaahinta markaa ku soo birtay ama jadwalka caadiga ay ka qabanaysa laakiin gabdhuhu waa in la siiyaa fursad waxyaabahaasi ay soo baratay waa in ay heshaa meel ay kaga shaqeyn karto. laakiin haddii mar kastaba uu daba joogo magacii dumarnimo aqoonteediina waxay noqonaysaa gabadhaasi inay la fariisato laakiin isdhexgal marka la sameeyo oo
la yiraahdo hiblaayo maxaa qaban kartaa awoodeedii la tijaabiyo gabadhan way ogtahay haddii jaaniskaas la siiyo inay wax qaban karto laakiin haddii ay meesha ay ka baxdo hadalka ah in waa gabar waxaan ma sameyn karto markasta in la siiyo jaaniska wiilka waa cadaalad daro meelo badan ay ka jirto SWJ tusaale shirkii ugu dambeeyay kani ka horeeyay oo 4 bishan lagu soo bandhigay Muqdisho waxa aan soo bandhignay in xeer awood siinaya gabadha intay warbaahinta ay ku shaqeynayso inay xaq u hesho gabadha sida wiilka uu xaq ugu helayo marka ay warbaahin ay ka soo shaqo doonato in ay ku nabadgeli karto warbaahintaasi ay ka shaqeyso waxyaabo dhibaato ah aysan la kulmin sababtoo ah gabadha marka ay warbaahintu ay ku soo birto marka ugu horeyso waxay xaq u leedahay sida wiilka loo shaqaaleysiinayo si lamid ah in loo shaqaaleysiiyo haddii warbaahintaasi aysan shaqo ka banaaneen la yiraahdo on positionkaasi shaqo waa inaga banaan tahay laakiin marka qaar waxa dhacay waxyaalo fara badan oo aan la sharxin iyo is-hoosgelis in dhibaatooyin muddo sii socday meelahaas ay ka iman karaan ma isku daydeen inaad la fariisataan deetana doodaad isdhaafsataan malkiilayaasha iyo maamulayaasha xarumaha warbaahinta ee dalka si tabashadiinu ay u meel marto inta badan waan sameynaa waxyaabaha la soo horfariisiyo maamulada kamid ah bilkiilayaasha warbaahinta kamid ah gabdhihiya kamid ah marka la dooday kadib ayaa waxyaabahan aan ku sharxaya ka soo baxay laakiin waqti ka hor ma jirin meel loo asteeyo su'aasha maamulka ay jawaabta ay bixinayaan marka la weydiiyo why doorka gabdhuhu u muuqan la yahay jawaabta ay bixinayaan waxay ahayd oo kaliya gabdhuhu aqoontoodu waa ay liidataa laakiin inta badan jawaabaha ku saabsan ilaa iyo 5 jawaabood gaarayo oo maanta aan bixin karno muddo ka hor ma aynaan haysanin taana waxay ku imaatay isdhaxgalka in gabdhaha iyo agaasimayaasha iyo wax badan la wada hadlo si problemkii loo ogaado markaa kadibna in xalkeedii loo raadiyo wata farxiya idinka lafsahantiin darajaan xagga waxbarashada waa iska warqabtiin ma soo bandhigteen heerarka waxbarasho gabdhaha idinkugu sarreeya ee warbaahinta ku jira iyo takhasusudooda noocyada ay kala yihiin qaarkood inaysan ka warqabin ayaa laga yaabaa xarumaha warbaahineed ee maamulada hoggaanka u ah waa sax daraasadii aan sameynay 2 sano ka hor laakiin la soo bandhigay bishii 3aad ee isla sanadkan waa ay muujinaysay dhammaan kaalinta gabdhuhu ay ku leeyihiin dhanka waxbarashada iyo dhanka shaqadaba waxa jiro number gabdho jaamacada ka soo qalin jibay laakiin xarumihii joogo oo aan wax dalacsiin helin taabil cagsigeeda waxaan aragnay wiilal aan u dhigmin dhanka aqoonta gabdhahaas laakiin dhinaca maamul ama dhinaca ka darajar sareeyaan arkay meelaha qaar marka laguma xushto in wiilku uu jaamacad uu ka soo baxay ama aqoontiisu ay aad u sareyso laakiin waxa lagu xushaa wax in waa wiil waxana waa uu qaban karaa mas'uuliyadaanina oo waa lagu aamini karaa halka gabdhahana loo maleeyo in shaqooyinkaasi intooda badan aqoontoodii si kasta wax u soo barteen meelaha qaar waa dumarnimo la xiriira inaysan shaqadaasi aysan la soo bixi karin taana waxay sababtay in gabdho badan ay niyad jabaan qaarkii wax soo barteen shaqooyin kale ay raadsadaan sida hadalkeyga hore aan kuugu sheegay inta kalena shaqooyinka isaga dhex jiraan laakiin mar un rajeynayay inay helaan meel awoodoodii aqoontoodii aragtidoodii ay ku soo bandhigaan waxaa jirtay in kawr ahaan aad samayseen daraasad la xiriirta habka shaqada ee gabdhaha suxufiyiinta qaarkood daraasadaas bulshada Soomaaliyeed markii aad dhex gashid waxay ku sheegayaan inay ahayd waxyaabo sumcad dil inay ku jireen laakiin daraasadaas u soo bandhigteen bulshada oo si wanaagsan ugu faahfaahiseen waxyaabaha daraasadiina ay cugsanayso iyo qodobada aad u xirinaysaan iyo dhibaatooyinka jira lafsa ahaantooda sidaad banaanka u soo dhigaysaan SWJ maadaama ay u qareento gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliyeed waxa laga maarmaan noqotay inaan ogaano xaaladda gabdhuhu ay ku shaqeeyaan si aan u ogaanana waxaan u baahanay daraasad inaan sameeyno oo aan ka sameeyno Soomaaliya dabcan daraasadana shaqadeedii waxa ay socotay muddo 2 sano cid kasto warbaahin kasta ayaad ka qayb qaadatay xarumihii warbaahinada aan soo booqanay waxa loo buuxinayay xitaa su'aalaha ama waraysiyada doodaha laga qayb galayay gabdhaha oo kaliya kuma ekeen wiilash iyo gabdhaha waa ay wada jireen sababtoo ah meelo waxa jiray aan ku fiirinaynay sinaanta mushaarka oo wiilka wariyaha ee gabadha meelo qaar waxaan ku fiirinaynay in positionada iyo xilalka wiilasha iyo gabdhaha marka taa waxa ay noqotay su'aalo wada jir ah inaan weydiino wiilasha iyo gabdhaha marka kadib waxa jiray waraysi aan la sameeynay milkiilaha ama agaasinka warbaahintaasi dooda jirtay marka questionnaire-ka interview-ga waxa soo dhan la soo buuxiyay kadib la sugu yimid oo waxa aan soo sameeynay maxsuulkooda
ay nala arkayeen aragti ahaan laga wada doodayay si taas la mid ah gobolada laga soo sameeyay laakiin waxa ugu weyn oo dhibaatada keentay waxa waaye anaga waxaan sheegnay 13% in gabdhuhu warbaahinada ay tacadi ay kala kulmi karaan nasiib daro dadka qaarkiis oo dadka aan ka dhalanay waxa ay u fahmeen in tacadigaasi uu yahay kii jinsiyeed inay arintaasina qaabkaas faham darida ay ku dhacday mararka qaar waxa dhacay dad kula doodaya ayagoona buugii soo akhrinin inaan ogeyn tacadiga noocyada uu u kala baxo iyo waxa aan u sababaynay marka ay doodaan kadib ama fikrado kala duwan ay bixiyaan marka la fariisato ama buugii aasiisina waa ay garuqsanayeen intooda badan dadka cilmi baarisyada iyo daraasadaha la xiriira wax ka fahansanna waxa aan soo saarnay waxa jira inay yihiin waa ay wada qirsanayeen inta badan bulshada Soomaaliyeed waa ay qirsan yihiin gabdhuhu inay dhibaatooyin ay kala kulmaan meel kasto shaqo kuma eko xarun warbaahin oo kaliya haddaba waa maxay tacadigaasi aan ka sheekeynay waxa kamid ahaa dhanka mushaarka sinaanta shaqada helida jaanisyada wiilasha iyo gabdhaha ma helaan mise wiilasha waa ay helaan dhan kastaan ka wada fiirinayna tusaale dhanka jinsiga marka laga hadlayo gabdhaha yaryar oo warbaahinta ku soo biiray hadii gabar intay warbaahin ay ku soo biirto ka hor intaan shaqada la siinin wax dumarnimadeeda la xiriira xitaa afka laga weydiiyo laakiin ficilkaas uusan dhicin waa tacadi gabadhaasi loo geystay marka dadka aan la kulanay 13% waxa kamid ah dadka tacadiyadaasi la kulmay oo ayagu ay ku dhacday marka wax ma soo kordhinayo shuruuciyada daraasadana kama mid ahaan heblaayo warbaahin hebel ka shaqeynaysa tacadigaani soo gaaray inaan dadka qaar waxay dhahayeen maxaad dadku u carbaabi weedeen oo u sheegi weedeen anaga marka hadii qaf tacadi ku dhacay gabar journalist ah sheegtay dhibaatadeedii aan bulshada aan la wadaagno markaas waxay noqonaysaa sumcad dil ana gabadha wariyaha aan ku sameynayno laakiin daraasadu oo cilmi baarisyadeedii iyo waxa ku jiraba aad ay u farabadnaayeen ma ahayn dhinacaasi agalka in jinsiga in laga fiiriyo hadda waxyaabaha soo baxay daraasada kadib waa maxay waxa soo baxay in bulshada gaar ahaan warbaahinta Soomaaliya ay u baahan tahay in la baro ama laga qayb galiyo dooda ah tacadiga iyo noocyada uu kala baxo hadda marka la fariisato ama kulamo la isugu yimaado la yiraahdo ABCD intaan waa maxay qof kasta wuxuu qirayaa inuu tacadi u yahay laakiin wuxuu ku leeyahay shalay waxaan tacadi u fahansanaa ficil jinsi marka naxad gudub ama dhinacyadaas ay dhacaan wax jinsi la xiriira marka gabadha lagu sameeyo inuu tacadi yahay marka taas ugu wacan faham daridaasi in dadka qaarkiis fikrado aan wanaagsaneyn ay ka bixiyaan laakiin ugu dambeyntii waa la wada fahmay dadku waxyaabaha aad uga shaqeynay waxa kamid ahaa in dadku buwaagta aan gaarsiino dadkii aanan joogin wadanka ama ka fogna tusaalahaan asoo soft ah inaan emailladooda aan ugu direynay laakiin muhiimadda waxay ahayd barnaamij aad u fiican oo natiijooyin fiican dhalay in maanta gabdhuhu ay awood ay u leedahay gabadhu waxa ay rabtaan ay ka hadli karto waxa dhibku ku ahna maanta ay sheegi karto in gabdhaha aqoontoodii marka sare loo qaado si looga gudbo dhammaan tacdiyadaasi gabdhaha loo geysanaya ama ay kala kulmi karaan xarumaha ay ka shaqeeyaan waxyaabaha tacdiyadaasi noo soo baxana waxa kamid ah inta badan dadka tacadigaasi ama dhibaatooyinkaasi ku dhacana inay yihiin gabdhaha ku cusub warbaahinta markaas ku soo biiraya isla mar ahaantana da'adooda ay aad u yar tahay oo aqoontiina dhinacii wax badan aysan ka dhisnayn laakiin gabdhaha wax soo bartay oo aqoon kala duwan soo qaatay markay u soo shaqo doontaan shaqadii warbaahinta dabcan lagula hadlo ama la hordhigo shuruud la xiriirta wax sumcadeedii gabarnimadeedii la xiriirto ma siisanayso because waxay u arkaysaa waxa ay u socoto iyo waxa ay rabto inay ka shaqeyso inay yihiin wax kala fog aynaan isku dhigmin marka waxay go'aan ay ku qaadani in ay joojiso shaqadaasi ay ku bedelato shaqo kale ama in ay dacweyso qofkii dhibaatadaasi rabay inuu u geysto laakiin uusan u geysanin oo ku ah dhibaato gabadhaasi loo geystay markastaba waa dhibaato ha lagu sameeyo mise aan lagu sameynin sidee looga gudbi karaa marka in gabdhaha la baraarujiyo aqoontoodii la dhiso maamuladuna inay ogaadaan in ay wax kasto lagu raad joogo maanta gabdhaha saxafiyiinta inay leeyihiin organization xuquuqdooda difaacayo wax kasto dhibaato warbaahintaasi gabadhaasi ay kala kulantana maanta inay leedahay marjac u laabato marka kadibna lagu la xisaabtami karo xarumihii warbaahinta ama meelihii sida gaarka ah dhibaatooyinkaas ay uga dhacayeen